هذا horta intaydan marka hore waa idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa bulshada AI automationka chatbotska iyo social automationka waxa la yiraahdo sida chatbot messenger oo kale iyo aynu hore ugu soo jirnay Telegram bot, messenger bot iyo WhatsApp bot intaba. asxaab waxaan arkay hadda cusub oo markiiba dhisay aad u iska fiican yihiin inaad chatbot dhisto ma xuma, laakiin basic horta intaynaan bilaabin waxaan doonayaa inaan idiin sheego waxa la yiraahdo wax ku dhisan yihiin. Muhiimadda ugu horeysa waa waxa loo yaqaano chatka markaa hagaajisanayso, yacni qoraalkaaga soo qoro, soo habayso prompt baa prompt engineering haddaad taqaano. So any kind of chatbot baad dhisi karaysaa. Marka wax weyn maaha hadii jeer ee aayadan maniis iyo ama allahumma musta'an mid kale yiraahdo perplexity magaciisa ma kale perplexity baa la yiraahdaa. So inta badan dadka normalka ah u isticmaalna maadaama xiisad ku soo biirteen. Dadka normalka hadii jeer AI ama ChatGPT tagaa waxay weydiiyaan. So taas waa yar old version because waqti bay ka cunaysaa. Adigu waxa u baahan tahay marka hore adigu is sheeg ChatGPT custom buu leeyahay, perplexity custom buu leeyahay. Minuska hadda isticmaal minuska waliba aad iyo aad asxaabta minus AI waxa iska leh waa shirkadda minus inaad ka timi hadda app-ka soo gelisay website-keedu iyadoo invitation lama heli karaba. So marka yacni aad buu maskax fiican yahay. Marka waxyaabahan waxay ka caawinayaan ama inta samaysato mataqaanaa waxay ka caawinayaan inaad prompt khatar soo dhisato oo yacni prompt instruction prompt maxaa ku yiri chatbot instruction iyo knowledge base iyo waxa la kala yiraahdo knowledge base horta intaynaan iman instruction baa la chatbot-ka markaynu siinayno amaro si gaar ah loo qoraa. So inuu bini'aadam baa hadda anigu qoraalka dheer baan iska soo qortay waliba in kasoo soo hagaajiyay oo ku soo hagaajistay AI haddana ilaa hadda maaha instruction. maxaan ku ilaa hadda maaha chatbot instruction. So marka chatbot instruction soo sameynayso soo koobi karaysanaysaa. So tusaale ahaan menus oo kale imanaya waxaan leeyahay inaan ku raahdo iga dhig yacni chatbot instruction kan qoraalkan iga dhig yacni chatbot instruction marka ka aan ugu doonayo. Okay, horta saaxiib intayna ChatGPT-ga soo qaadin waxaan ka wadaa instructionka GPT-ga ama knowledge base-ka instructionka yacni qoraalkan dheer baan ka wadaa oo marka adigu soo samaystay. qoraalkan dheer horta waxaa ka horeeya marka hore waa inaad document ku shubato. Anigu Google document baa isticmaalaa. Google document waa one of the best qaar ka fiican u jirin laakiin ugu popularsan haddii aan noqoto. mideeda kale ardayda qaar baa aqoonsi loo download gareeyo ama loo forward gareeyo ama loo share gareeyo waa easy. haddaad tagto saddexdaa dhibcood hadii jeer meelahaas oo dhan eegaysa copy galaysa oo name garan lahayd oo print garan lahayd. So uma baahnid ba asxaabtaysa PDF wala hal daqiiqo bigiisa aad PDF ba ka dhiganaysa. So asxaabta qaaliga uma baahnidin hataa kan isticmaalsa kulli dad AI ga baranaysan ku soo dirta ugu soo biirtay khasab weyn inaad app-kan ku shubataan. Okay, marka hadda instruction-ka ama knowledge base-ka oo soo noqono waxa halka igu jira wada instruction haddaan ka ku dhufto kale tusaale ahaan kan haddaan qaado iminka menus ma la tagayaa because waa powerful waana speed maxaana kugu yiri waana one of the haddaad doonto ChatGPT wala dultay karaysaa isbuu kuu samayn karaa. laakiin inaan wax weyn waynadii ku yiri inaad maha waa inaad u sheegtay wax kasta waxaad qabanayso calaashaan. taas markii aan idiin sheegi doonaa hadda aan tin ku ekaano. Okay, hadda waan soo koobi gareeyay qoraalka dheereed arkayso waxaan dul imanayaa minus maxaa la yiraahdaa waska kale AI ga minus ama GPT waxaad doonto isticmaal. laakiin waa inaad u sheegtaa marka hore halkan aan u sheego waxaan ku yiri halkan haddaan soo dhaco saaxiib halkan waxaan ku yiri halkan iyo kan maaha ka kale. Okay, waxaan ku yiri chatbot intaan u qoray waxaan ku yiri waxaa rabaa abaa ku inaan sameeyo iyo sidaas halkan intaan هذا ساعات انت تسوق waxaan rabaa inaad sameyso qoraalkan chatbot instruction. So hadii shirkad mid istiqwa marka uu kala duwan yahay chatbot knowledge base-ka iyo chatbot instruction-ka yacni kan hadda maadaama aanu sameynayna chatbot waa in waxa inagu aanu rabno u sheegnaa si uu qabto. hadii kale waxa laga yaabaa in marka qaar qad ka baxso inagu bini'aadam beenahay laba cisho kugu qaadanaysa taastaa soo dhisa saabta inta soo qorayso 2 sekiin ba halkan imanaysa intaan idin sheegay waa soo qaadanaysa document PDF kaaga marka ku soo samaysto qoraal caadi ah. doonto qoraalka adigu ku dadaal qoraalka hore because marka in qoraalka yar hore 2-3 page yacni waxa haddaad rooli iibinayso kale
roodhidu waxay ka samaysan tahay halka lagala soo xiriiray waxyaabaha haddii dee roodhida cidda samaysay waxay ka samaysan tahay dadku maxay kaga duwan tahay waxyaabaha kale. So intii baan soo qaadaya marka halkaa ima asxaabta best baan halkaa markaa ku odhanayaa yacni maarata waa soo dhigay gebigiisiiba halkaa maarata asxaabta ama isagoo folder soo qaatay laakiin manusku wuxuu ku fiican yahay isagoo automatically ahaan marka ku tiraahdo best pdf markaba saaxiib yaa ka dhigaya. marka intaas waxaan ku oranayaa send marka halkaasuu igu samaynayaa aslaagna marka in daqiiqad kadib yani asxaabta manus wuxuu khatar ku yahay waa mid ka mid ah xataa af Soomaali buu ku fikirayaa manus buu ka awal duudi flowing macluumaadku akhriyay xataa uu ku sheegay waan fahmay waxaan kaaga caawinay dhismaha chat يعني حاجة سبير كنا أصحابته وولاد مركو ريري فايلش أخرية يعني مركو سويتيني تيكينج وحلا يراد حتى ولا أوكي أصحابته لو بس كنت مركو كورادة لا وش دقيقة كنت مركو كورادة منيس إمي يعني هاوشي أصحابته إيزي اللي مركي بعد أصحابته الكاسة كاركيسا سو مركي بعد هذا نقول في أصحابته وكا chat bot instruction كي ويسمي إسلا أوتوماتيكلي ولا هو وركي ويسمي أصحابته واتن إسقيه فافاسن wax kasta oo sidoo uu kala yaala asxaabtay marka waliba Jason uu ku sameeyay faylasha iyo okay marka maxaa hadda sameynaya hadda eeg asxaabtay waxba igama khaldana soo hadda wax walba weydiin marka nagasti isla maadaama prompt engineering soo baranay oo muhiim ay tahay prompt engineering markasta inaad soo sameystaa asxaabtay waxaan geli doonaa casharkeeni kale ee marka chatbot